kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya xiliyadan oo kale aad noga barateen qodobada aad daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan waxa kamid ah heshiis shaki abuuray oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la galay dhigiisa Masar Cabdilfataax Al-Siisi guux weyn oo hareeyay qaabka ay Villa Soomaaliya uga hadashay heshiiskaasi haddaba maxaadan ogeyn oo ay ku heshiiyeen madaxweyne Xasan iyo hogaamiyaha Masar General Xuud oo kacdoon ka dhana maamulka Hirshabeelle uga dhawaaqay magaalada Muqdisho iyo Cali Guudlaawe oo wadnaha farta ku hayo kadib warka ka soo baxay General Xuud iyo kooxdiisa kacdoonka gobolka Hiiraan ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo soo dhaweeyay muddo kordhinta baarlamaanka ay u sameeyeen si uu tabanbari gudahood ugu soo dhiso golihiisa wasiirada iyo kulamada uu la yeelanayo bulshada oo uu sii xoojiyay ra'iisul wasaaraha si uu u soo dhiso xukuumad tayo leh ciidamadii ugu badnaa ee Itoobiyana oo ku soo wajahan xadka Soomaaliya iyo General Udwaa Yuusuf Raage taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiil Itoobiyana oo kulan looga hadlayay sugidda amniga ku yeeshay xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownaa daawadayaal madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan kula qaatay magaalada Qaahira ee caasimadda waddanka Masar dhigiisa dalkaasi mudane Cabdilfataax Al-Siisi madaxweynaha ayaa la wadaagay dhigiisa dalka Masar mudnaanta ay dawladda Soomaaliya siinayso xiriirka taariikhiga ee ka dhaxeeyo labada dal isagoo tilmaamay in booqashadan ay saldhig u noqonayso dib u xoojinta iskaashiga diblomaasiyadeed dhaqaale iyo wax wada qabsi oo ay wadaagaan labada shacab ee walaalaha Xasan Sheekh oo uga mahadceliyay dawladda iyo shacabka Masar martigelinta kumanaan arday Soomaaliyeed oo dalkaasi u joogo waxbarasho ayaa sheegay muhiimadda ay dawladda Soomaaliya u leedahay dib u soo celinta doorka dawladda Masar ay ka qaadato horumarinta waxbarashada dalka dhismaha ciidamada iyo la dagaalanka argagixisada dhankiisa madaxweyne Cabdilfataax Al-Siisi oo ugu hambaliyeeyay madaxweyne Xasan Sheekh dib u doorashadiisii ayaa ku boogaadiyay shacabka iyo dawladda Soomaaliya dadaalka ay ugu jiraan dawlad dhiska iyo xasilinta dalkooda waxaana uu sheegay in dawladda Masar ay si buuxda u garab taagan tahay xaqiijinta Soomaali heshiis ah midaysan xasiloon oo horumar ku tallaabsato sidoo kale labada madaxweyne ayaa isku xog wareystay xaaladda gobolka iyo caqabadaha jiro iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu uga warbixiyay dhigiisa dalka Masar qorshihiisa ku salaysan Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah iyo waliba in dawladda federaalka Soomaaliya ay hiigsanayso in xiriir wanaagsan oo ka turjumayo iskaashi iyo wax wada qabsi ay la yeelato dhammaan dalalka ay la tahay saaxiibka deriska iyo dan wadaagta dhinaca kale guux weyn ayaa ka dhashay qaabka ay madaxtooyada Soomaaliya uga hadashay kulanka dhaxmaray madaxweyne Xasan Sheekh iyo dhigiisa Masar iyo warka ay warbaahinta Masar tabinayaan baraha bulshada sida Twitter-ka iyo Facebook-ga ayaa la soo dhigay masaarida oo kaga mahadcelinayo sida ay Soomaaliya ula safatay Masar dagaalka kala dhaxeeyo Itoobiya ee webiga Niil madaxweynaha Masar Cabdilfataax Al-Siisi ayaa sheegay in isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh ay ka wada hadleen arrinta biyo-xireenka webiga Niil ee Itoobiya waxaana ay soo bandhigeen khatarta ay leedahay siyaasadda halka dhinac marka la fulinayo mashaariicda webiyada isaga gudbo xuduudaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa sheegay in iskuulo ay u dhisi doonto Masar isla markaasina iskaashi iyo wax wada qabsi ay samayn doonaan waana mid kala duwan hadallada labada madaxweyne Itoobiya iyo Masar ayaa u dhaxeeya muran ku saabsan biyo-xireenka webiga Niil oo ay dhisatay Itoobiya waxaana hore dawladdii madaxweyne Farmaajo ay ula safatay dawladda Itoobiya
isweydiinta ayaa ah haddii dowladdii farmaajo la safatay Itoobiya maxaa xasan sheekh u diidayaa inuu dantiisa haddii uu ka helo Qaahiro la safto dagaalka biyaha webiga Niilka balse waxaa inta badan iyaduna dadka mucaaradsan xasan sheekh ay isweydiinayaan sababta uu u qarsanayo xasan sheekh maxamuud in uu la saftay Qaahira iyadoo dowladdii farmaajo aysan arrintaasi qarsanin. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa uga mahad celiyay mudanayaasha golaha shacabka sida wanaagsan oo ay u aqbaleen codsigiisii ahaa in muddo kordhin ay u sameeyaan si uu u soo dhiso xukuumaddiisa uuna u sii ambaqaado wada tashiyada ugu dambeeya ee uu samaynayo ka hor inta uusan ku dhawaaqin xukuumaddiisa. Ra'iisul Wasaaraha ayaa saacadihii la soo dhaafay sii xoojiyay wada tashiyada iyadoo oo uu kulan la qaatay culamaa u diinka iyo dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana uu boogaadiyay doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku aadan ka qaybgalka horumarka waxaana uu xusay inay yihiin mustaqbalka dalka tallaabaduna ay tahay mid waxtar leh oo lagu kaabayo dowladnimada. kulanka intii uu socday ayaa ra'iisul wasaaraha iyo dhalinyarada qaybahooda kala duwan waxay isdhaafsadeen su'aalo ku aadan xukuumadda uu soo dhisayo iyo sida ay fursad shaqo ugu abuuri lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed. dhanka kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu ku qaabilay xafiiskiisa culamaa u diinka iyadoo culamaa u diinka uu ku wargeliyay sida uu doonayo inuu soo dhiso xukuumad tayo leh oo shacabka u adeegto waxna ka qabato dhibaatooyinka ka jiro wadanka. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in maalmaha uga dhiman waqtiga baarlamaanka ay u qabteen uu sii wadi doono wada tashiyada si uu u soo dhiso xukuumad lagu wada qanco. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in 100% suuragal aysan noqon doonin xukuumadda uu soo dhisi doono in lagu wada qanco ha yeeshee uu isku dayi doono ugu badnaan ay noqoto xukuumaddiisa mid kalsooni ka hesho shacabka intooda badan iyadoo dhinaca kalena uu sheegay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay uu soo dhisi doono sidii looga gudbi lahaa dhibaatada ka taagan waddanka Soomaaliya xal waarana lagu heli lahaa. culamaa u diinka ayuu ka dalbaday in xukuumadda uu soo dhisi doono ay ku taageeraan sidii waajibaadka loo igmaday ay u gudan lahayd. qaybihii dambe ee warkeena ayaan isla soo gaarnay daawadayaal. iminkana Generaal Abubakar Xaaji Warsame Xuud oo si weyn uga soo horjooday maamulka Hirshabeelle balse xilligii ay sii dhacaysay dowladdii farmaajo la keenay magaalada Muqdisho isla markaasina qaatay nabad ayaa ku dhawaaqay kacdoon cusub. Generaal Xuud ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in marnaba uusan isbedelin mowqifkiisii hore ee kacdoonka kaasi oo uga soo horjooday madaxweyne Cali Guudlaawe maamulkiisa. Generaal Xuud ayaa sheegay in aan xoog lagu haysan karin gobolka Hiiraan isla mar ahaantaasina maamul cusub ay u samaysanayaan gobolka Hiiraan isagoo xusay in uusan aqoonsanayn maamulka Hirshabeelle ee uu hogaaminayo Cali Guudlaawe. sidoo kale waxa uu sheegay in xalka xiisada taagan uu ku imaan karo wax ay raali ka yihiin reer Hiiraan isagoo xusay in reer Hiiraan ay isku duuban yihiin kadib masiibooyinkii ka dhacay beledweyne. ugu dambeyntiina waxa uu beeniyay in soo laba kaclaynta kacdoonka uu hogaaminayo Generaal Xuud uu lid ku yahay madaxweyne Xasan Sheekh maadaama xilligii farmaajo uu hoos u dhacay ololaha jabhadeynta generaalka isagoo Muqdishona u yimid lana heshiiyay dowladdii farmaajo. dhinaca dagaalka Itoobiya haddii aynu eegnana saraakiil ka tirsan amniga oo ka kala socdo Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku kulmay magaalada Ceelbarde ee u dhow xuduudda Soomaaliya ay la leedahay Itoobiya. kulankan ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Oduwa Yuusuf Raage iyo taliya ku-xigeenkii ciidanka Liubolis Generaal Zakariya Cabdi Khaliif. sida wararka ay tilmaamayaan kulankan ayaa waxaa looga wada hadlay sidii wax looga qaban lahaa kooxda Al-Shabaab ee xadka goosatay iyo in labada dhinac ay iska kaashadaan sidii looga sifayn lahaa xadka kooxdaasi. sidoo kale waxa uu sheegay Generaal Oduwa oo kulanka ka hadlay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay la dagaalanka Al-Shabaab. kulanka saraakiisha ayaana daba socdaa weerarkii Al-Shabaab toddobaadkii hore ay ku qaadeen magaalooyinka Yeed iyo Caato iyagoona u sii gudbay gudaha Itoobiya
kadib weeraradii ka dhacay deegaanadaasi. dhanka kale ciidamadii ugu badnaa ee Etoobiyaan ah ayaa loo soo diray xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ay wadaagaan si loola dagaalamo kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cagjar ayaana soo sagootiyay ciidamada cutubyo ka tirsan ciidamada Itoobiya oo ku soo wajahan xuduudda uu dalkaasi la wadaago Soomaaliya. ciidamadan ayaa u diyaarsan sida la sheegay inay ka hortagaan Al-Shabaabka ku sugan xuduudda Itoobiya ay la wadaagto dhinaca gobolka Hiiraan. habeen hore ayaa boqolaal dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab waxay ka gudbeen beledweyne kuwaasi oo hub iyo saanad watay dhinaca feerfeer ayayna u ruqaansadeen. madaxweyne Cagjar ayaa waxa uu kula dardaarmay ciidamada inay u babacdhigaan Al-Shabaabka soo duulay ee dalka Itoobiya nabadiisa carqaladaynayo. wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaarayo halkaasi ayaana sheegaya in ciidamada Liu Booliska ay baadigoobayaan xubno Al-Shabaab ah oo la sheegay inay ku sugnaayeen deegaanka Laas Qurun ee gobolka Shabeelle dhinaca feerfeer. guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.